kusoo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socotaan Bulqaas Media waxaana idin la socodsiinaya Cabdirasaaq Bulqaas. Mahadsanid Deeqasona. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta xiriirkii diblomaasiyadeed waxay u jartay dalka dariska la ah ee Kenya iyadoo ku eedeysay inay faragelin ay ku hayso siyaasadda dalkeeda. Dowladda Kenya ayaan iyadu wali wax war ah ka soo saarin amuurtan. gobolka Tigreega ee Itoobiya ayaa dib u helay adeegyadii qaar iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu doonayo xaaladda sidii caadiga ahayd inuu ku soo celiyo. Dowladda Itoobiya ayaa dib gobolka Tigreeg uga howlgelisay shaqaalihii rayidka ahaa ee hore gobolka uga shaqaynayay waxayna amar ay ku siisay milkiilayaasha qoryaha inay hubka ay dhigaan maadaama xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay doonayso in xaaladda gobolka waqooyi ee wali go'doonsan toddobaadyo dagaal ah kadib caadi lagu soo celiyo. qaar ka mid ah adeegyada korontada iyo xiriirka isgaarsiinta ayaa sidoo kale lagu soo celiyay magaala madaxda gobolka ee Mekelle tan iyo markii ciidamada federaalku ay weerareen November 4-teedii. laakiin waxaa jiray warbixino sheegaya sicir barar dhinaca maciishada iyo biyo yaraan inay ka jirto gobolka iyadoo wali gobolka mamnuuc ka ah in saxafiyiintu ay tagaan ogolaansho la'aan. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta oo Talaado ah waxa uu ugu hambaliyeeyay Joe Biden guushii uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dalka Mareykanka kadib markii Biden uu ku guuleystay codbixintii gobolada dalka taasoo si rasmi ah u go'aamisay cidda ku soo baxday madaxtinimada Mareykanka. geesta kalena xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka ninka lagu magacaabo Mitch McConnell ayaa waxa uu ugu hambaliyeeyay Joe Biden ku guuleysiga doorashada madaxtinimada ee bishii hore. Senator McConnell ayaa waxa uu ka hadlay arintani kadib markii guddiga doorashada ay si rasmi ah ay u xaqiijiyeen guushii Mr. Biden uu kaga adkaaday Mr. Trump. madaxweyne Trump wali waa uu diidan yahay inuu qirto isagoo sameynaya sheegashooyin aan sal iyo raad toona lahayn oo been abuura. madaxweynaha waddanka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa waxa uu diiday go'aanka Mareykanka uu cunaqabataynta ugu soo rogay Turkiga ee ku saabsan iibsashada gantaalaha Ruushka ee S-400 waxana uu ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. madaxweyne Aliyev waxa uu u arkaa cunaqabatayntan mid hal dhinac ah oo ka dhan ah Turkiga waana mid aan la aqbali karin. waa cadaalad darro in xubnaha kale ee NATO ay isticmaalayaan hubkan la mid ah oo dhanka difaaca hawada ah ayuu yiri Hikmet Hagiyev oo ah kaaliyaha madaxweynaha ahna madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha waddankaasi Azerbaijan. kooxda islaamiyiinta xag jirka ah ee Boko Haram ee fadhigoodu uu yahay waddankaasi Nigeria ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen afduubkii asbuucii la soo dhaafay lagu kaxaystay boqolaal wiilal iskuuley ah gobolka Katsina ee waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. fariin maqal ah oo ku saabsan afduubka ayuu hogaamiyahooda Abubakar Shekow waxa uu ku yiri wixii ka dhacay Katsina annaga ayaa ka mas'uul ahayn waxana intaas uu ku daray in kooxdiisu ay ka soo horjeedo waxbarashada reer galbeedka. in ka badan 300 oo arday ayaan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen laakiin kuwa kale ayaa ku guuleystay inay baxsadaan. maamulka ayaa horay ugu eedeeyay afduubkani burcad weerarka inay geysteen. dhageystayaal intaasi waxa inooga dhan warkii caalamka oo aad kala socoteen Bulqaas Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Bulqaas Media iyo bogga Facebooka ee Bulqaas Media subscribe saar amaba follow gare. haddii aad tahay macmiil soo noqdayna ha iloobin inaad share garayso isla markaana wixii fariimo ahna aad comment ahaan aad noogu reebto. waad mahadsantihiin.